dibqalloocu wuxuu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka bahda bilaalif dhabarleyda gaar ahaana bahweynta xayawaanada yaryar ee leh labada gees ee isku soo jeeda kuwaasoo ay ka mid yihiin caarada shilinta iyo aboorka waxay wadaagaan sifooyin ay ka mid tahay in ay dhammaantood leeyihiin 8 lugood bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeedhaan scorpionis waxau badanaa ku nool yahay deegaanada cawsleyda saxaraha iyo deegaanada ay cimiladoodu diiran tahay sidoo kale dibqallooca adduunka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 2,000 oo nooc kuwaasoo laga helo qaaradaha adduunka oo dhan marka laga reebo dhulweynaha atlantiga afka soomaaliga waxaa loo yaqaan dibqallooc ama dabaqallooc iyo hangarale cimrigiisu waxau gaadhaa 2 ilaa 6 sanno inkasta oo ay ku xidhan tahay jaadka uu yahay dherarkiisu 9 milimitir ilaa 21 sentimitir halka uu culayskiisu gaadho 0.5 ilaa 5 gram dibqalloocu waxa uu leeyahay 24 hidiside sidoo kale dibqalloocu ma dhalo beed balse waxa uu dhalaa caydi yar oo muddo ay tadhadi ku xanaanayso dhabarkeeda dibadda 10 ilaa 20 cisho markii keliya waxay dhashaa ku dhowaad 100 xabbo hab meertanoleedka dibqalloocu waxa uu maraa marxalado kala duwan oo kala ah ugxaan caydi iyo qaangaadhnimo jidhka dibqallooca waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah qaar hore iyo qaar dambe dibqalloocu waxa uu dareeraha ku jira ka nuugaa xayawaanada uu quuto gaar ahaana cayayaanka iyo noolayaasha kale gaar ahaana habeenkii oo badanaa ma soo baxo dibqalloocu maalintii qaniyada dibqalloocu waxay dhibaato gaadhsiisaa habka dareewadka ee dadka inkastoo badanaa dibqallooca badankiisu aanu wada lahayn suntaasi halista badan waxaa lagu kala gartaa midka halista ah iyo ka kale waxa uu ka halista ahi leeyahay dib dambe oo dhumuc leh waana madow badana balse kadib ka dhuuban lihi ma laha sun badan dibqallooca aadka u sunta badan ee sababi kara in dadku dhintaan waxaa badanaa laga helaa qaaradaha aasiya waqooyiga afrika brazil iyo dalka mexico dadka qaar ayaa aaminsan in dibqalloocu ka yimi xaarwalwaal balse arrintaasi waa mid khuraafaada xaarwalwaalka ama doorshaanku waxuu ka tirsan yahay bahweynta cayayaanka bilaalif dhabarleyda sidaaynu wakhtiyadan dambe saxaafadda adduunka ku aragnay sunta ku jirta aalaha ama dibka dheer ee dambe ee dibqallooca qaarkii ayaa laga ganacsadaa iyadoo shirkadaha dawooyinka sameeya ay ka farsameeyaan dawooyin qaaliya dalalka dibqallooca suntiisa dhoofiya ee lagu dhaqdo waxaa ka mid a bakistan masar hindiya iyo iiraan halkii garaam ee sunta ku jirta aalaha dambe ee dibqalloocu adduunka waxay ka joogtaa 7,000 ilaa 8,000 oo dollar ugu dambayntii waxaa laga soo wariyey inuu nebiga sallallahu calayhi wasallam qaniinay dibqalloocu isagoo salaad ku jira waxauu nebigu sheegay inuu yahay xayawaan nacdalan oo alle naxariistiisa ka fogeeyey sidoo kale waxauu amray in lagu dilo meel kasta dhulka xurmaysan haddii la joogo iyo haddii kaleba